السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ددوينه كسدوادا برنامجك SP channel تاريخوينك سومالي بانتو برنامجك مانتنا أيسن إنجيديوي والغردك أقوياهنك سومالي بانتو أحمد هالجماع تاريخوينك سومالي بانتو سيفايل والسنك أوجيا برنامجك إنه أسئية سن إنجيديو أنا كسابسني تاريخوينك بقرطوينك سومالي بانتو أحمد كسدواو برنامجك SP channel. السلام عليكم تعالى ورحمة الله وبركاته. أولا لكنا محمد أحمد الجماعة أنا إذا سوق بنايو برنامج جرأ كسبسن تاريخ هذا كاس عنك يقول لي هاي أنا أوصل بندقه ومدة ولا عليه جاه إن أنا وذاقه واحد تاريخه أو لقريه كنا سبسن قومية الصومال باندو أما جرى وينه تاريخ ثاني وحن رواه سوق دي سجارة إن أنا أوجه الله أنا ضد المرايا وإن أن أوجانا هرت سبواها يسيابوين كأنا مرك أوجهريسو أن أدل من نهاي بين بالله يسبواها أن إسقوي ديننا مسلمين من مجرتمية وضدك خارقود من الناس عايشة إن بدن يسوي دين سومالي لحديدا وإليه ضد كان مسلمان runtii waxaan rabaa hor taariikhdeeda maanta inaan ku saleeyo inta yar ee xusan xasuustan u baahan dib u eegistan u baahan oo ku saleysan sagaalkii boqortooyo ee qoomiyadda Soomaali Bantu ama jireed weyne sagaalka boqortooyo waan ka fac weynahay marka boqortooyo ahaan la xisaabiyo balse sagaalkan waxay noqdeen sagaalka kaliya ee maanta la xuso ee la xasuusan karo haddaba Soomaaliya waa dal nooc ah Soomaaliya maxay ahaan jireen dalka Soomaaliya dadka loogu yimid ama indigenous ka ah ama deegaanka iska leh waa dadkani jira weyne ee Soomaali Bantu balse laakiin dhibaatada jirtay iyo dulmiga jiray ayaa wuxuu sababay maanta in 72 fariiqood loo qeybiyo 72 fariiqood marka loo qeybiyo qaarkoodna afka loo geliyo qayb ka mid ah jilaac loogu talagalay in loogu abtiriyo ama xoog la rabo in la iskugu saleeyo taas oo aan markii dambe iyo markii horeba dadkeeni macnaha danta ku kaliftay iyo waxyaabo ku kaliftay aysan ogeyn balse laakiin hadda aad u maleysay in wax badan laga faa'iido wax badanna laga tusaale qaatay sagaalkan boqortooyo ee jireed weyne waxa ka soo qaadanayna boqor baraxow boqor baciir boqor muruftaaruf boqor dibkaabaale ama dibkaabaalo boqor sababbaabo faylaaro geedi baabo boqor tulaan iyo boqorkii ugu dambeeyay Allah naxariisto boqor nasiib boonto dhammaantood Ilaahay ugu naxariisto hadda waxaan rabaa sagaalkan boqortooyo maxay ku kala saleysanaayeen maxay sax xukumi jireen intaysa kala haysteen runtii markaan ka wada hadalno anaga waxaan nahay qoomiyad leh min sagaal gobol ee Soomaaliya sagaalka gobol ee Soomaaliya marka la isku wada daro 18 gobol laakiin sagaal ka mid ah adiga iska leh sagaalkoodii ayaa inta lagu qabsaday isla markaasna lagu dulmay lagu haystaa lagu dhacaya maanta dhibaato lagu gaarsiinay waxa jirta caalamka masiibooyin ku dhaco dadka indigenous ka ah ama dhulka loogu yimid masiibooyinkaasi waxa ka mid ah dadka loogu tagay dalka Mareykanka ee Indianiska ah waxa markii ugu horeysay ee wadankaasi la tagay la qabadsiiyay luqad la dhaho English markii dhulkoodii la qaatay la boobay la dhacay la dilay la kufsaday wax walba lagu sameeyay oo aan loo aabiyeen ugu dambeyn dalkaas maanta waxa ka talinaya dad madow ah ama madaxweyne madow ah oo ah Barack Obama waxaan tusaale kale u soo qaadanaynaa dalka loogu magac daray ama lagu magacaabo Australia waxa iska leh dad madow ah oo magacooda la dhaho TV dadkaasi loogu tagay dhulka waxa ka qaatay dad cadaan ah waxaana la qabadsiiyay luqadda Englishka taasna waxay sababtay in ay haystaan hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyana waxa ka dhacay waa isla tabtii ka dhacday labadaas dal aan ka soo sheekeynay iyo dalalka qaar ee Scandinavian iska leh ee leeyihiin niman Saami la dhaho balse la farac guuriyay isla markaasna lagu sababay in ay degaan dhulalka geesaska barafka ah laakiin dhulka ay leeyihiin ayaga European-ka laftigooda ayaa sidaas isku kala boobay haddaba wadamadan laakiin waxa ka jira wax la dhaho saami qaybsi xuquuqi xaq ku saleysan balse Soomaaliya laga ma yaabo inay ka jirto midaas sababtoo ah dhibaatooyinka Soomaaliya loogu geystay qowmiyadeena waa mid ka fac weyn ama mid ka sareysa dhibaatooyinka kale ee ka jira dadka indigenous ka aan ka soo hadalnay sida Mareykanka iyo Australia loo geystay waxaan rabaa in aan boundaries ama wax yar aan idinkaga sheekeeyo dhibaatadan salka halkay ka bilaabatay salka halkay ku haysaa runtii dhibaatadan qowmiyadda sida weyn noogu soo hogaamisay nala soo maagtay maanta waa qowmiyad aad dhibaato u haysata iyadana waxaan idin sheegayaa Oromo markaad maqashaan waxaan filayaa inay tahay aadna wada taqaaniin inay yihiin Ethiopian laakiinse
oromo maxay ahaayeen oromo waxay ahayd qoomiyad fac weyn waxay la tartami jireen qoomiyadda Soomaali maanta ama jiray wayne sababtoo oromadu waa qabiilka kaliya kushiitika ah ama jilacda ah isla markaasi haysta ama raba in ay wax fashaan waana qoomiyadda kaliya ee jilac ah ee beer falata waxa dhacday taariikh ahaan boqorka ugu faca weyn dibka baylo ama dibka baalo si loo yaqaano dadka inta badan waxay dhahaan dibka bayle laakiin dibka baale ayaa intuu si badan magacaasi u wataa qarniga aan ka sheekeynayno waa 700 900 sano ka hor dhammaan marka laga reebo boqor nasiib bondo oo ahaa qarnigii 18aad dhammaan sideeda kore boqortooyooyinka jiray weyne way dhumeen haddaba sabahay ku dhumeen maxaa ugu facweyn ama ugu weynaa ama natiijadooda ay ahayd sababtoo waxay lumiyeen ama ay ka tageen dhankii xiriirka Bantu ee dadkii kale Afrikada deganaa waxay noqdeen dad kaligood ku go'doonsan dhulka Soomaaliya waxay noqdeen dad inta cadow u soo tashtay ku dul yimid isla markaasna meeshii lagu kala qaybsaday waxay noqdeen qoomiyad isla markaas meesha ku baabaasan runtii waxaan rabnaa marka in aan idin soo qaato sheeko cajiib leh oo aad la yaabi doontaan haddii xataa idinka aad baartaan maanta ama dib u eegtaan oo aad dib u eegis ku samaysaan sheekadan waxaa ka mid ah marka sheekada la dhaho waxa dhacday qarniyada aan ka soo hadlayno marka boqortooyinka horta sida isku kala xukuma intaan ku gudagelin ayaan rabaa waxa jiri jirta marka dagaal u dhaxeeyo boqortooyada Oromada iyo boqortooyooyinkii soo maray qoomiyadda Bantu oo sanooyin 2 sano 4 sano 5 sano 6 sano mid walba markuu xukunka qabto midka kale uu ugu tagi jiray seen kan kale uu sii gaarsiiyo mid walba midkuu xukunka qabto oo mid kale ugu tagi jiray waxayna kaga duwanaayeen boqortooyooyinkii kore waxay kaga duwanaayeen dadka boqortooyooyin kale soo maray Afrikada waxay ahaayeen dad qaanuun leh sharci leh kala dambeyn leh oo u diyaarsan tahay kuna nabad in xariis waxayna qaybsan jireen arrimaha khuseeya naftooda arrimaha khuseeya dadkooda arrimaha khuseeya wadaniyadooda arrimaha khuseeya qadiyadooda haddaba waxa dagaalkaasi dheer loo qaybiyay 3 dagaalka marka 3 loo qaybiyay waxa loo qaybiyay caruurtii gawaweyn caruurtii aylo caruurtii Shabeelle iyo caruurtii Shiama Axmed caruurtiisu waa kuwa Puntland ku dhumay loo bixiyay magac la dhaho sida Ismaan Maxamuud ama loogu magac daray Ismaan Maxamuud balse laga Ismaan Maxamuud ma ahan asalkoodu waa jareer asalkoodu waa Bantu haddaba dagaalka oo socday in muddo ah dagaalkaasi oo ay qaadeen qoomiyaddeena oo inta badan lagu soo qaadi jiray dagaalka ayaa waxa ciidamada hogaaminayay hogaamiyaal ka dhashay beelaha ama beesha inkastoo qoomiyadda ay leedahay beelo badan beesha reer Shabeelle iyo gawaweyn oo isla socda iyo ciidankii Shiama Axmed iyo ciidan ay la ka socda oo yaa gudaha loo diray in ay dagaal adag la galaan boqortooyadii oo hogaaminay Oromada dagaalkaas marka gudaha loo galay Ethiopia ayay gudaha u galeen waxa dhacday gobolka ugu weyn ee Oromiya wuxuu fadhigiisu yahay marka oo leh oo haysta boqortooyadii markaasi Oromada ahayd ee faca weyneed kana jirta dalkaas marka dagaalkaasi la isku lafa gurtay oo dhibaatooyin badan oo meeshii la isku lafa murxay oo ay jilbaha la isku dhigtay oo wax walba ay ka dhaceen waxa dagaalkaasi uu qaatay muddo 16 cisho ah gudaha dalka Ethiopia maanta waa la yaab haddii aan ku dhaho gudaha dalka Ethiopia dagaal ayaa ka dhacay dagaalkaasina waxa geystay ciidamo jareer weyne ah waxa laga yaabaa in ay isweydiisay taariikh muu'ana sidee ku dhacday halkeesu ku jirtay maxaase loo sheegay haddaba nin taariikhdiisu duwantay ama la rabo in la aaso qof u sheegay ama ilaa ma uu asiga ka dabagaaro ama taariikhdiisu dib u soo eego baarista taariikhdani oo muddo dheer igu qaadatay inta aan ku guda jiray in aan barto iyo inta aan ku guda jiray in aan xogteeda ogaado natiijadeeda dhabta ah markii ugu dambeysay waxay ku soo baxday wax xaqiiqda ku saleysan xaqana ku saleysan sideedaba ma dhunto taariikh ku saleysan xaq waxaan tusaale u soo qaadanaynaa markii dagaalkii uu dhacay ayaa waxa ay qabsadeen ciidamada Bantu magaalo u jirta 67 kiiloomitir caasimada Addis Ababa magaaladaas markay qabsadeen waxa meesha iskaga barakacay oo iskaga yaacay nimankii Oromada ah ee haystay magaalada oo saldhigoodana uu ahaa magaaladaasi oo loogu magac dari jiray markii ay qabsadeen ayaa magaceedu hore waxa loo yaqaanay oo aad ay caan ugu ahayd ganacsi
waxaana magaceeda hore ahaa saldhigna wuxuu ahaa magaaladaasi sidoo kale aan xusno boqorkii hogaaminayay Oromada. magaaladaasi ayaa magac ahaan u weedatay Oromo. magaaladaasi ayaa magac ahaan u weedatay Oromo. gobolkan wuxuu ahaa Oromia. waxaa dhacday dagaalkaasi markii la qoomiyada gashay ayaa waxa isu soo aroorsaday dhammaan nimanka Koshitaka ama Jalaacda ah. waxay isku soo aroorsadeen inay Oromo garab siiyaan. waxay isku soo aroorsadeen inay qoomiyada Bantu soo jabiyaan. haddaba dagaalkii waa lagu soo jabiyay ciidamadii Soomaali Bantu ama Jareer Weyne. markii ay ka soo laabteen dagaalkii, ciidanka ugu dambeeyay wuxuu saldhig ka dhigtay Qalaafe oo ay maanta degan yihiin beelsha Jareer Weyne ee reer Shabeelle iyo dhankaas kale oo ay degan yihiin waliba ay gawaaweyn xataa ay qiimo badan ay ka degan yihiin dhanka ismaamulka Itoobiya. taasna waxay sabab noqotay in difaac meesha laga xirto oo ay ka xirto ciidamadii markaas la soo jabiyay. waxaa dhacday isla taariikhdaas gudaheeda markii ay ku soo laabtay nimankii Oromada ahaa dhulkii ay haysteen Jareer Weyne ayaa isla markii waxay ugu magac dareen Bantu Town, magaca la dhaho oo ah magaaladii ama caasimadii Bantu, maadaama 16 cisho ay ka dagaalamayeen ciidankii Bantu. wuuna u qaadan waayay ninkii la dhahayay dadkii hogaaminayay boqortooyadii Oromada, maadaama ay la noqotay wax fajac leh oo ay la noqotay dad tira ahaan uu ku xisaabtamay inuu ka badan yahay, awood ahaan uu ku xisaabtamay inuu ka badan yahay in si dhib yar leh ay u galaan. haddaba meeshaas waxaa kaaga muuqato in geesiyaashii hore ee soo maray boqortooyooyinkii watay ciidamadii soo dagaalamay in ay awoowayaashiin ahaayeen dad geesiyaal ah, marna aan kasoo gambanin dagaalkii galaan kuna soo guuleysan jiray ilaa ma la iska soo bahaysto. haddaba aniga maxay ku dhacday in aan dagaalkaas ku guuldareysano? wax kale maaha, dagaalkaas waxaan ugu guuldarsanay ciidanka difaaca ahaa in la ka rabo in aan la yeelano ama aan la yeelano khadadka xiriirka leh Afrikada kale waan wada jarnay. waxaan maqnay dad ku nool kaliya kuna kooban dhulka Soomaaliya, meelna aan xiriir la sameynin. taas waxay ku dhacday xiriir la'aantii awoowayaasheena. sidaa la aaminsan yahay waxaa jira cilmi la dhaho Doi civilization. marka Doi civilization dib loo eego, cilmigaas wuxuu ku tusayaa in Soomaaliya weliba East Africa gaar ahaan dadka madowga ah degan ay kasoo faracmeen ama laga faracmay ayaga. waxaa taas ku tusaysaa in Afrikada aniga ay naga faracantay. caalamka ninka jilaaca markuu soo abtirsadan wuxuu u imaanayaa qabiilada ugu faca weyn oo hadda weliba aan ku xusi karno qabiilka Eylo oo inta badan dhalay carruurta Jareer Weyne. qabiilka Eylo magaca uu isticmaalay ilaa hadda waxaad arkaysaa in ay aad ugu badan tahay. maxaa yeelay waxay isticmaalaan sida bayle, waxay isticmaalaan dibka, waxay isticmaalaan sida sabababu, waxay isticmaalaan fayl arow, waxay isticmaalaan mad sabrow. ereyadaasi kuma arkaysid mana isticmaalaan Jareer Weynaha kale sababtoo ah ay waxay yihiin dad si toos u galaya. markaan anaga ayagu ku abtirsano waxaan la aaminsan yahay cilmiga rasmiga uu yahay kala qiimeynta intaysan imaan in annaga oo dhan aan ayaga kasoo faracmayno. Afrikada shanta la isku yiraahdana ee ayaga ka faracmayaan. Afrikada shanta waa kuwa marka Afrikada shantu markaan idin soo tiriyo waa nimanka la dhaho Uganda, nimanka la dhaho Kenya, nimanka la dhaho Tanzania, nimanka la dhaho Rwanda iyo Burundi. Afrikada shanta la isku yiraahdaa nimankaasna inay ka faracmeen maxay ahayd qoomiyada Soomaali Bantu oo idin balse laakiin faraca ugu weyn waxa iska leh Eylo. haddaba waxa dhacday sababta loo dugay aan ka hadalno maalin kale taariikhaha ku saabsan faracayna iyo sida aan kala faracnay, sida aan isku dhaldhalnay marka aan ka soo tagno awooweena Baana Ciiso bin Ham. waxaan u sii dhaadhacinaa oo aan rabnaa markii aan ka hadalno taariikh yar isla markaasna ku seeso aawe marka carruurtii Shiyaama Axmed. haddaba dagaalkii markii lagu guuldareystay qoomiyadii ay ka baxeen meeshiina ay ka baxeen boqortooyooyinkii Jareer ee mar walba isbedelayay xiliyadoodii ayaa waxaa dhacday in dagaalkii aan ku jabnay muddo badan. dagaalkaasina aan ugu jabnay kaliya xiriir la'aan. maalintaas ayay tusaale noo ahayd in ay jirto xiriir la'aanta oo la gooya inay dhibaato badan leedahay. maanta waxaan aragnaa haddii xiriirka goynay in aan murug badan iyo mushkilad badan ka qaadanayna meesha. haddaba waxaan rabaa marka in wax yariis aan ka hadalno. ciyaalka Shiyaama Axmed waxay degaan Xaafuun iyo waxay degaan Boosaaso. waxaa kusoo duulay oo dhinac badda ka soo galay oo isla markaas dhinac badda ka soo galay nimankan hadeertan Majeerteeniya la dhaho ama Puntland baxay. dhulkii ayay qabsadeen. nimankii Oromada ah ee dagaalka nagula soo jiro waxay si toos ah u soo abaareen marka dhulka lixda ah. dhulka lixda waa kuwa la isku dhahaa, waxa la isku yiraahdaa markaan soo tirnayna Bay, Bakool,
shabeellaha hoose jubbada dhexe jubbada hoose iyo gedo dhulka lixdaa markay ku farsmeen waxaa awood ay u yeesheen in ay la wadaagaan magac ahaan qabiil isla markaas waxaa la sameeyey system la dhaho digil and mirifle haddaba digil and mirifle idin kaga sheekeeyo taariikhahan digil mirifle wax la dhahay ma jiro kontii 300 waa jareer sababtay ku dhaxdana waxay tahay digil mirifle waxaa imaatay wax la dhaho midowga Sofiyeeti ama iskaashato maadaama ay ka baxday boqortooyooyinkii xukumayay dhulkaas waxay danta Oromo ay ahayd in ay gacanta ku dhigto isla markaasna ay saldhig ka dhigato halkii dib ka baale boqorkeeni uu xukumi jiray boqorkaas oo ahaa boqorkii Ilaah boqor baraxu wuxuu ahaa boqor shidli ka soo jeeday boqor abaxiir wuxuu ahaa boqor ka soo jeeday gawaweyn boqor muftaar wuxuu ahaa boqor ka soo jeeday gawaweyn sidoo kale boqor fayla aro sidoo kale ama sabab baabo labadooda waxay isku ahaayeen gedi baabo dhamaantooda waxay ahaayeen boqor ka soo jeeday qabiilada Aydo boqor Tulaan oo kale wuxuu ka soo jeeday qabiilka Shiido boqor Nasiib Buundo wuxuu ka soo jeeday qabiilka Shambara haddaba markii dagaalkii iyo wixii ka guuleysto waxa imaaday system marka dadkeen lagu dhaxday all divide and rule dhaxdag oo kala qeybi dadkii waa la dhaxday waa la kala qeybiyay siyaabooyin badan ayaa loo kala lafa gurtay okay qarniyadii markii laga soo tagay kadib waxa nasiib wanaag dib u soo cusboonaaday kacdoon labaad kacdoonkaasi labaad waxa ku soo baxay boqor Nasiib Buundo oo asiga xukumayay Jubbooyinka boqor Nasiib Buundo oo Jubbooyinka xukumayay ayaa wuxuu bilaabay in asiga markaasi asaaskiisii iyo xiriirkiisii uu dib u soo celiyay wuxuu soo dejiyay nidaamkii boqortooyooyinkii hore wuxuu ujeedkiisu ahaa in dhulka Soomaali Bantu dib loogu soo celiyo ka arimintii boqortooyooyinka nidaamkaasi oo ahaa nidaam aad u culus waxa iska kaashtay oo boqorka oo howlwadin u noqday isla markaasna hoggaan u noqday dad badan wuxuu hoggaan u noqday in shacabkiisa uu ku dhaqo nidaam iyo jadwal iyo system kala dambeyn haddaba waxaas oo dhan waxa dhex dhigay markii dambe boqor Nasiib Buundo wuxuu jiray qarnigii 18aad wuxuuna dhintay qarnigii 19aad 1900 eber 6 waxaana dilay gumeysiga Talyaani oo cil badan u qabo maadaama uu ahaa qof aad iyo aad u soo dagaalamay oo aad iyo aadna gumeysiga kaga soo horjeeday dhammaan ay ka cawdeen qabiiladii lama gudda ama aan u naqaano ku shidiga haddaba taariikhdan maxaa loo xusi waayay waxay tahay isla markii ma jirin xilligii Maxamed Saad Barre ka hor wax la dhaho jiray weyne balse 1959 markii la qaatay xorriyadda Soomaaliya markii intaan la qaadan xorriyadda Soomaaliya isla markaasna la soo dilay ninkii hoggaanka u ahaa SYL ee asaasay isla markaasna jareer ka dhashay ee la dhihi jiray Cabdiqaadir Sheekh Saqaawudiin waxa go'aan lagu gaaray in meesha lagu la faguro barnaamij cusubna la sameeyo la rabo dadka in lagu kala qaybsho waxayna sameeyeen wax la dhaho jareer magaca wax lagaaga dhigay markii ugu horreysay sababta hadan magacan lagu siiyay waxay ahayd in magaca magaalada Bantu Town la dhaho ee Itoobiya 67 kiiloomitir u jirta caasimadeeda aadan ba ogaanin balse laakiin magacan maanta qof walba ku qabsan kartaa haddaba haddaad rabtid magacan inaad aado ama aad rabto magacan inaad iga soo hubiso waxaan kuu dirayaa laba meel gal YouTube waxaad ku qortaa Oromia Region markaad Oromia Region ku qorto waxaad dhahdaa Bantu Town magacaasi wuu ku soo baxaya isla magaalada aadna ku soo arki kartaa qofkii awood u leh uu rabo in uu soo obsado waa aadi karaa oo Bantu Town uu soo booqan karaa waxaan idin sheegayaa bartaasna inay tahay bartii ciidankii qowmiyadeena ay ku dagaalameen waxaan sidoo kale daawayaa ama si dabracayso oo arintaasi macnaha tixraac badan ama si la socoto ayaa ah haddii aad rabto inaad ku samayso tixraac badan arintan fadlan waxaad gashaa internetyada caadiga ah waxaadna ku qortaa Oromia Region isla markaasna Bantu Town waxa ku soo baxayso saacada xilliga ay tahay Bantu Town saacadaasi ay ka tahay meesha aad joogtid xilligaasi waxay ka tahay iyo macnaha akhbaaraadku ku saabsan magaaladaas fadlan ogaado tani waa taariikh u baahan in dib loo soo nooleeyo maalin kasta waxaan isku dayayaa ama xilliyada qaar waxaan isku dayayaa in aan dib idinkaga soo sheego taariikhaha qowmiyadda iyo xaq iyo xuquuqda ay u leedahay fadlan gaarsii qof walba oo walaal ah si uu wax badan kala socdo waxaan idin sheegayaa dhammaan dadkii faraca weynaa ee qowmiyadda ka dhashay dhammaantood in la duudsiiyey dhammaantoodna magacyo kale la siiyey waxaana dhexdegitaankii la isku dayay in lagu kala qaybiyo arrimo la dhaho digil miriflo arrimo la dhaho biyamaal markaan idin sheego ama markaan idin xifdiyo maanta waxay ka kooban yihiin Kushitik iyo Bantu balse mis weydiiyeen sababaha magaca ku qasbay in la kala qaato
waxaa Soomaaliya loo qeybiyey 3 Soomaal, Tumaal iyo Biyamaal. saddexdaas maxaa loogu kala qeybiyey? Biyamaal wax kale ma ahayn, waa biyihii oo la Soomaali jiray ama beermaalkii ayay biyo ka dhigeen. waxaa taas loogu talagalay in lagu dulmiyo marka isla qabiilada qowmiyadda Bantu. waxaa qabiilkaas oo kale aan usoo qaadanaya marka oo tusaale aan usoo qaadanaya maanta niman baa ayaga sheegto rabo in ay xoogaan Kushiitiga. sababaha loo sameeyey maxay tahay? waa dulmi la rabo in dhulkoodii lagu dhaco. inkastoo taariikhdaas ay aad u fog tahay, haddana dadkan ay aad kaga soo sokeeyaan, haddana waxaa tusaale kugu filan Digli Mirifle. waxaa magac ahaan, xaquuq ahaan, xaq ahaan dhulka iska leh waa dadka Digli Miriflaha Bantuga ah. balse maxaa lagu aafiyey oo lagugu darajin waayey sidaa? sababtoo ah dhexdega ayaa bilowday iyo in lagu qabsado ama lagu qeybiyo divide and rule wax la dhaho, oo ah micnaha dhexdeg oo qeybi. systemkan raadraaciisu aad u weyn yahay, waa mid aad u dheer. waxaa loo baahan yahay in qof walba oo Bantu ku abtirsan ama Jareerweyne ku abtirsado uu fahmo. 1959 waxaa la qoray buug tilmaamaya in qowmiyadda Soomaali Bantu ama Jareerweyne laga tirtiro ama laga ciribtiro Soomaaliya. sababaha qaababka looga ciribtiri rabin wax kala ma ahayn, maxaa yeelay ayaga xiriir ay Afrikada la lahaayeen ama dadka walaalahooda la lahaayeen ma jirin. fadlan ogsoonow, marka aad soo baxday ee aad qaxootiyadu kasoo bilowda noloshaada ama aad imaatay 2000 wixii kasoo dambeeyey, waxaa ku baxa magaca la Soomaali Bantu. ilaa hadda dadka waxay u maleeyaan magacaas in ay bixin United Nation. no way. laakiin waa inay fahmaan dadkayga, magacaas ma bixin United Nation. waa tahay Bantu ala ka dhigay qowmiyad fac weynaa tahay, balse laakiin waxay u ordayaan in Jareerweyne ay ku siiyaan si taariikhdaada loo dulmo. maxaa yeelay hadda waxaad ogaataa Nasiib Buntu taariikhdiisa ugu dambeysay waa tii ugu dambeysay. talyaanigii dilay wuu ka maarmi waayey inuu buug ka sameeyo ama uu ka qoro, laakiin iyagu waxay ku dadaalayeen in aysan buug ka sameyn kana qorin sababaha oo jira awgeed. maxaa yeelay waxaa la rabaa in wax walbo ay qowmiyad ku abtirsata la daboolo. waxaan u maleynayaa in waqti badan aan geliyey ama waqti badan aan kasoo hadlay, balse laakiin manaafacaadka ku jiro ama fursadaha ku jiro ee aad kaga faa'iideysan kartid warbixintan iyo warbixino kale oo la mid ah ayaa ah wax loo baahan yahay in maskaxdaada ay gasho, ayaa ah wax loo baahan yahay in maskaxdaada ay ka daadagto, ayaa ah wax loo baahan yahay in maskaxdaada aad isla markaas ku kiib garayso ama aad ku xifdiso si caruurta adiga berita dhashin aad uga sheekeyso ama kuwa maanta ku joogaba. maxaa yeelay caruurta waxaa fiican in aan barno waxa aan anaga nahay marka ugu horeyso. ninka la dulmay ha weydiinin sababta lagugu dulmayo adiga ama qabiilka noocaas u galayo ama barnaamijkaas noocaas u galay, sababtoo ah waxyaabaha jira bal dib u tixraac. waxaa tahay qowmiyad lagala soo dagaalamay dhinac kasta. taas markaan kula dhinac kasta waxa lagala soo dagaalamay, dad ba maanta waxay yiraahdaan Maxamed Siyaad Bare dawladiisa Allah maxay u taagnaan weysay. dadkaas waa Jareer, laakiin ma ogsuna Maxamed Siyaad Bare dawladiisa haday jir leh inta maanta kaa dhimatay ka badankeed iska daayay waa lagu zuulin lahaa. isweydiina marka sababta lagu zuulin lahaa. maxaa yeelay waxaa la qoray buugaas oo lagu qoray 1959 buugaasna waxaa loogu talagalay in lagu dulmiyo qowmiyadda Bantu ee calankii Soomaaliya xaq iyo xuquuqda u lahayd. buugaas wuxuu amrayay in qowmiyadana laga tirtiro Afrika, laga tirtiro qaaradda Afrika, laga tirtiro dalka Soomaaliya, maadaama ayagana xiriir aysan lahayn la lahayn walaalahood. waxna Afrika sac lagu dadaalay qaabka loo kala qaybin lahaa oo divide and rule lagu sameyn lahaa, sida hadda ku dhacda ilmo Shiyaam Axmed. haddaba waxaan kulan mar yeelanay ninka soo jeedo Bantuga Puntland. marka in kaga hadlo runtii ninkaasi taariikhda sidoo uu ahaa iyo sidoo wax badan uu iga sheekeeyay waa arimo cajiib leh. runtii taariikhahan waa mid xusan kuwa la qoray. waxaan nasiib u yeeshay in aan helo ama aan tuuladii markaasi aniga asal ahaan kasoo jeedo ee gobolka Shabeellaha Hoose aan ugu tagay maqaaro ay qoreen dad odayaal ah, kuwaas oo dhaxal ahaan ay noogu tageen si micnaa anaga wax badan kala socono. fadlan marka aad dhageysato warbixintan waxaad noo sheegtaa haddii aad ku qanacsan tahay in aan dib idinkaga soo sheegno taariikhdeena oo aan rabnay in aan wax badan idinla socodsiino si aan isku waafaqno. fadlan codeynta ama ra'yiga bixinta waa idinka dhankiina. maxaa yeelay waxaan u baahanahay walaalka muwaadinka ah ee qowmiyadda Bantu in uu fahmo qadiyadiisa rasmiga ah. waxaan u baahanahay walaalka ka dhashay qowmiyaddan faca weyn ee Afrikada loogu yimid, qowmiyaddan faca weyn ee dhulka Soomaaliya loogu yimid, dulumka halkuu kaga soo bilowday. dulumkan ma yahay wax dhamaanaya.
hal mid uu ku dhamaan karaa dulamkan waa anagoo gacmaha isqabsana waa qoomiyad oo wada tashata waa qoomiyad oo hal dhinac kaga soo jeesata waa qoomiyad oo wax iska dhicisa balse haddii ay maanta qoomiyaddeena noqoto qoomiyad fadhisa ee aan waxba dhaqdhaqaaq muujinin ha ogaato in la marsiin doono wadooyinka loogula tashtay la rabo in lagu qaybiyo owalna loo soo sameeyey systemkana uu ahaa divide and rule laguna dhaqi doono inta ay ayaga ka hadlaan ama ka kacaan ama waxay qabsadaan intooda badanna waxayna ku dhacdaa masiibooyinkan dadka indigenouska ah sidaan hore kuugu soo sheegay kuwa maraykanka degan iyo kuwa Australia labadaba loogu tagay iyo kuwa saamiga ah ee loogu tagay wadamada Europeanka ah sida gaar ahaan Scandinavianka walaal taariikhdaadu waa muhiim taariikhdu waa muhiim in dib loo xusaa taariikhdu waa muhiim in dib looga hadlaa taariikhdu waa muhiim in wax badan lagu sheegaa taariikhdu waa muhiim waa gaf dhacay oo dib loo saxaayo taariikhdan si kale kuma dhumin taariikhdan waxay ku dhuntay luqadii rasmiga ahayd ee qoomiyaddu ku hadlaysay oo la qaatay isla markaasna loogu bedelay wax la yiraahdo may iyo maxaa tiri taas oo loogu talagalay laftigooda in lagu gumaysto qoomiyadda Soomaali Bantu laguna kala qaybiyo taas oo loogu talagalay in qof walba oo jireer ah luqad gaar ah uu wato ama uu wato lahjad gaar ah si aysan isku fahmin labadooda xitaa wixii dhexmaray balse laakiin maanta nasiib ay u leeyihiin in ay isfahmaan aqliyan maskixiyan fikrad ahaan waxaase loo baahan yahay in qadiyad ahaan maanta ay iska midaysan yihiin ay ka wada midaysan yihiin dhanka qadiyadda sababtoo dadkani waa dad wada dhashay walaala ah dhulkana wadayaan dhulkana wada daadsan waxaa loo baahan yahay in ay is aruursadaan iskaashtaan iskana qabtaan cadow alaala cadowgii usoo duulay ee raba inuu naftooda maalkooda diintooda maanta ku dhaawaco haddii aad aaminsan tahay muslimnimadu waa inaad khaalis ahaataa marka aad adiga muslim tahayna kan muslimka nabadgeli marka lagu dhahay kan kale waa inuu ku nabadgeliyaa balse laakiin kan kugu soo duulay systemka uu wato muslimnimo iyo arrimahaas lama xiriirde wuxuu la xiriiraa barnaamij la dhaho systemka aan idin soo sheegay ee divide and rule ah dhexdeed oo kala qiimi haddaba dhulka barwaaqada sooranka ah ee Soomaaliya waxa iska leh oo xaq iyo xaquuq u leh qoomiyadda Bantu waxa dul saaran in la soo degin waa ummad dulmi doon ah inta aan idin soo sheegay waxa jirta taariikh sida la isku kala dhalay ee Afrika u kala degan yihiin dadka aan kaga soo jeedin doono in barnaamijyo badan oo hadduu Ilaahay yiraahdo ay idin faahfaahin doono ama sintiin dhamaan walaalahayga sharafta badan ee qoomiyadda Bantu meel walba caalamka ka joogto waa walaalkiina Axmed Maxamed Axmed Halgama oo barnaamijkani si toos ah idinku soo diyaariyay barnaamijkan qof kasta oo qoomiyad ku abtirsada uu fahmo caqabadaha dhabta ah tana digtoonaado dhagarta ay wataan qaswadayaasha ee anaga nafteena micnaha u soo tashtay in ay na dilaan na dhacaan na boobaan na tirtiraan balse Ilaahay ma dhigin waana sidaan hadda qoraalkii filinteedina kuugu sheegay maxamed saad barbarkiisa dowladdiisa dan badan ayaa ugu jirta qoomiyadda Soomaali Bantu badmaansantiin dhamaan balse laakiin maanta waxay laga faa'iideysan lahaa ma waa maansantiin walaalay sharafta badnaa dadweynuhu barnaamijka uu geega siin hayni taariikhooyinka Soomaali Bantu boqortooyinka ona ninka hadalay Axmed Halgama hegiya ninka agya markastana may kala socdo kortana barnaamijka SP channel taariikhooyinka Soomaali Bantu SP channel YouTube SP channel Facebook SP channel Twitter hegiya kala socdo kortan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.